السلام عليكم daawadayaal waxa ahaa wiil yar oo ka soo jeeda qoys beeraley ah oo reer miyi ah waxa ahaa mid la dhibaataysan fahmidda casharada dugsiga isagoo 5 jir ah ayuu bilaabay ganacsiga aabihii lacag uu hadiyad ahaan u siiyay isagoo oo yar ayuu ku aasaasay shirkad maanta ah tan ugu weyn caalamka ee soo saarta qalabka guryaha taasoo in ka badan 400 xarumood kula daafaha caalamka IKEA waa shirkad ganacsi oo farsamaysa iibisana agabka guryaha waa shirkadda ugu weyn caalamka ee soo saarta agabka guryaha waxaa lagu aasaasay waddanka Sweden sanadkii 1943 waxaa aasaasay wiil yar oo 17 jir ahaa oo la odhan jiray Infer Kamberg lacagta ku aasaasay shirkadda waxa hadiyad ahaan u siiyay aabihii maadaama uu waxbarashada dugsiga horumar ka sameeyay Infer waxa uu qabay xanuunka dyslexia oo ah xanuun haleela carruurta yaryar kaasoo ku sababa akhris liidasho xagga casharada ah iyo faham darro Infer ganacsiga uu sameeyay waa uu guuleystay maanta IKEA waxa ay 433 xarumood ku leedahay guud ahaan 52 dal oo caalamka ku yaala sanadkii 2018 IKEA waxay iibisay alaab qiimaheedu kor u dhaafayo 45 bilyan website-ka IKEA waxa ku jira 12,000 oo nooc oo alaab ah intii u dhaxaysay September 2015 ilaa Agosto 2016 website-ka IKEA 2 bilyan oo qof dad kor u dhaafaya ayaa booqday IKEA waxay isticmaashaa looxa ugu badan caalamka maadaama ay tahay shirkadda soo saarta agabka ugu badan ee alwaaxa ka samaysan sidoo kale waxay soo saartaa cuntooyinka qaar magaca IKEA waa ereyo la isu geeyey oo u taagan Infer Kamberg oo ahaa ninka aasaasay iyo Elementary oo ah beertireeda ku dhashay sidoo kale Agenda oo ah tuulo u dhoweyd beerta uu ku dhashay markii ereyada la isku minguuriyo waxaa ka soo dhaxbaxaya magaca shirkadda IKEA kaas oo macnihiisu noqonaya Infer Kamberg ka yimid Elementary Agenda Infer Kamberg from Elementary Agenda Infer waxa uu geeriyooday sanadkii hore bilowgiisii isagoo 19 jir ah majalada Bloomberg waxay sheegtay inuu ahaa shakhsiga sideedaad ee caalamka ugu hodansan sanadkaas hantidiisa waxay gaadhaysaa ilaa 58 bilyan shirkadda waxaa maamulo oo gacanta ku haya wiilashiisii wiil yar oo reer miyi beer farata ahaa ayaa aabihii lacag yar u siiyay ka sameeyay shirkad ka soo bilaabmatay inuu baaskiil alaabta ku geegeeyo goobaha ganacsiga shirkaddaas oo maantana ah tan caalamka ugu weyn ee soo saarta agabka guryaha dakhliga shirkadda IKEA waxa uu kor u dhaafayaa 44 bilyan xarunta ugu weyn ee shirkaddu waxay ku taallaa dalka Netherland halabuurka ganacsigu waa mid horseeda inuu bedelo nolosha qof ama bulsho dhan wiilkii beeraleyda ahaa shirkaddii uu aasaasay maanta waxa uu shaqeeyaa in ka badan 2,000 oo qof kuwaasoo qoysas leh kuna tiirsan shirkaddiisa Infer kaliya noloshiisa muu bedelin ee sidoo kale malaayiin qof ayuu bedelay noloshooda Infer odhaah cajiib ayuu ka tegay waxaanu yidhi sunta ugu halista badan waa dareenka guusha ama yoolkaaga inaad gaadhid daawada fashilka lagaga hortagi karaa waa fiid walba ka fikir maxaad berri qaban weliba sidii hore si ka fiican